بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. بعد waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta iskuulka Al-Mustaqim Primary and Secondary School hoos tago hay'adda Al-Mustaqim Foundation oo caadiyan aad uga barateen inay taakulayso carruurta agoomanka ah iyo dadka danyarka intaba taasoo iskuulka gacanta ku hayso isla markaasna ka saacido in carruurtaas agoomankaas wax lagu bari lahaa gacan loo sii lahaa iyo kuwa danyarta intaba dhax gashana dadyo kala duwan oo dunida dibadda iyo gudaha intaba ku nool wax uga soo qaado sidii carruurtaas wax lagu bari lahaayna mas'uuliyiinteedu ay isku xilqaameen isla markaasna ay dhaxda u dhuuqsadeen haddii aan gudagalo waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo horta daraasad ku saabsan iskuulka iyo daraasadihiisa qaabka u baxaan xiisadihiisa kala duwan maadaama aniga aan macallin ahay wax badan yani aan kala socday xiisadaha iyo iskuulka iyo guud ahaan waxbarashada iyo qaabka ku socoto aniga maadooyin kala duwan ah iskuulka ka dhiga wuxuu leeyahay qayb dhexe qayb sare qayb hoose inta uu leeyahay iskuulku saddexda qaybood oo kala duwan oo iskuul looga bartay uu ka kooban yahay marka sida la socotiin waxa la soo gaaray waqtigii imtixaanaadkii kala duwanaa oo min termkii oo kala geli lahaa imtixaankii dhexe ee dugsiga kor intaan la gaarin imtixaankii finalka ee dugsiga oo qaadin jiray imtixaankan inta la soo gaarin qaab kala duwan ay daraasadu ku socotay oo in la bixinayo waqtiga subaxii oo kale hal saac laga soo bilaabo ilaa 6 saac 7 saac laga bilaabo hadana ilaa galabkii oo kale daraasad kale ay socoto qaybtan subaxii oo kale markaan ka warbixiyo waa qayb dhexe iyo qayb sare dugsiga qaybtiisa dhexe iyo qaybtiisa sare waaye waxa la soo gaaray marka waqtigii imtixaankii iyo wixii la qaadi lahaa la soo gaaray imtixaamaadkaas oo kala duwan qaybo kala duwan lahaayeen imtixaan bilaadi kala duwan aan soo qaadnay imtixaankii dugsiga iskuulka oo qaadi jiray qaybtiisii dhexe ayaa hadda mid termka hadda la marwaya taasoo ardada lagu tijaabinayo aqoontooda iyo qaabka yani imtixaankaas ay waxyaabihii la soo baray inay wax ka haayaan iyo wax iska haynin imtixaanka marka qaybo kala duwan loo qaadi jiray inkastoo hadda noqonayo imtixaan warqad lagu qaadayo ardada guud ahaan ay ka midaysan u fadhiisanayaan laakiin imtixaamaadkaas qaybo kala duwan loo qaado tusaale ahaan imtixaanaad waxa jira ardada loogu talagalay aysan in ardada aan wax qori karin oo kala maadaama iskuulka ay dhigtaan arday aad u yar yar loogu talagalay oo qaab maqal loo qaado su'aalo loo yaqaano oral question su'aal afka lagu weydiinayo laga qaadayo arday waxa jira aqoontii haayo isla markaasna aan warqad ku qori karin ardadaas oo kale waxa loogu talagalay inay ku qaadaan waxa loo yaqaano su'aalaha afka lagu weydiiyo isla markaasna imtixaanka looga qaado marka imtixaankina hadda waa soo dhow yahay insha Allah wiilka soo socdayna galnaa rajaynayna insha Allah marka iskuulka iyo daraasadihiisu si fiican ay u socdaan waxaan rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu guuleeyo doono mas'uuliyadaas aan wada qaadanay oo arday agooman aan guryahooda ka soo kaxayno anagoon cid aan naqaano ama aqoon aan ku soo kaxaysanayno aysan jirin Soomaalinimo iyo aan ka damqanayno dadkaas walaalahayna oo dhibaataysan inaan dadkooda wax u barno carruurtoodina aan ku soo meeshaas wax ku barno si biri dalkina ay u anfacaan dadkana ay u anfacaan si lamada naftoodana ay u anfacaan ay noqdaan dad wax la qaybsada dad yooga intooda kale dad waxa jiraan carruurtooda iskuulaad geystay carruurtoodii waxay rabaan ka dhiibtay laakiin ilmahan agoomanka ma heli karin waxay iskuulka isaga dhiibaan waxay waxbarashada isaga bixiyaan iyo qaabka kala duwan oo dadkaas ay wax heli karin ay wax u helaan ay wax u heli karin laakiin hadda si walba tahay loo fududeeyay aqoontii markuu ardayga helo oo aqoon helana asiga dadka la tartami karo waxyaabihi kale oo dadkaas ay heli lahaayeen uu heli karaa qofka markuu aqoontiisa korsado marka hay'adda iyo dadka mas'uuliyiintana waa mid celina insha Allah in dadaalkooda halkaas ka sii wadaan iyo dadweynaha shacabka oo dhamaan ka qayb qaatay dadweynaha kala duwan oo dhamaantood ka qayb qaatay taakulaynta carruurtaas agoomanka ah marka statementkiisa intaas ku soo gabagabeynaa Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan carruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo weliba agoonta waa laga dardaarmay
shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa